Assalaamu calaykum, soo dhawaada. Okay, hadda marka waxaan joognaa campaignki. Marka hadda campaignka joogno oo macnaha ku dhufano kadib aan tagno adsetska meeshan oo macnaha adsetska noogu jiraan. Waxaan sameynaa adduunka oo dhan waa xasuustiin iyo Soomaaliya Djibouti iyo macnaha Soomaaliya Djibouti oo wadato detail targeting ama interest wadato. So marka hadda waxaan rabnaa inaan fahmno ama see loo fahmaa campaignka oo macnaha adsetska khasaarada nagu wado iyo kii in la damiyo la rabo, kii in la dhaafo la rabo. So marka waxaad samayn kartaa waxaa ku dhufanaya oo kale specific haddii aad rabtid oo kale kan adduunka oo dhan inaad fiirisid oo kale for example macnaha hadda waxaan joognaa meesha ugu dambeysay oo levelkii oo adskan joognaa. So hadda marka waxaan fiirinaynaa kooda horo inta macnaha like aan helnay iyo inta macnaha like oo macnaha cost per like oo kale halkii like markaa helno meeqa ku helowna halkii like macnaha adskan faraha badanna oon sameynay tee ugu fiican. So marka haddii aad isku fiirin oo kale tan oo kale hadda macnaha ayada 29 ay haysataa. Haddii markaa fiirisid inta macnaha ku baxday macnaha kan 29 ka haysto inta lacag ku baxday oo kale haddaa fiirisid iyo kan 20 ka haysto maadaama ay isku dhow yihiin iyo kan. So hadda kana ujeedaa macnaha 1 like aan helnay maadaama 1 like helnay Facebook macnaha waxay rabaan ayaga intaan tusi karno dad waa tusnay laakiin halkii like oo ah heshay aniga 18 cent ka qaadana waa macnaha. So marka kan oo kale hadda macnaha ujeedaa waa 0.01 kan oo ujeedaa waa 0.004. So haddii marka aad saan u fiirisid oo kale aan ku click through rate macnaha waa inta qof oo macnaha markay arkeen kadib reaction ku sameeyo like saar macnaha mar walbana waa inay macnaha ahaata click through rate kaagu waa inuu ahaada more than 1%. hadda 1% yeah is enough, okay waay. haddii aad haysiin oo macnaha product aad gadaysid iyo haddii dad aad macnaha landing page kaaga ay kugu soo dirayaan informationkooda waxay rabtaba ha aato mar walbaba adiga waxaa fiirisaa click through rate kaaga inuu more than 1% yahay. haddii 1% yani waa okay. hadduuna 1% oo ka yar yahay laakiin that means waa inaad macnaha shaqo ka qabataa ama aadka wax ka qaldan yihiin ama koobiga oo meesha ku qorta wax qaldan yihiin marka inaad test samayso waay. marka haddii hadalkan soo gaabiyo haysiintan oo hadda campaignkan aan ku jirno oo macnaha adsetkan oo adduunka oo dhan ah ma aha mid aan rabo inaan sii ran gareeyo macnaha wuxuu ahay mid oo testi oo si loo sameeyo haddii aad u baahato kale oo ahay macnaha. marka haddii aad hadda overall aad fiirisid saddexdoodaba 0.01 way kulligood 0.01 0.01. So hadda marka kan waa iska diminaa because ma rabo adduunyo kale inay beekan oo macnaha jabron ay oo ajaanib iyo u badan ay iska soo galaan waxaa rabaa inuu pure Soomaali ahaado. So haddii marka aad fiirisid kan oo Soomaaliya Djibouti oo 13 ka bilaabanaya haddaan fiirino waxaan rabaa marka inaan isla fiirino haddii macnaha ay kala qaalisan yihiin iyo kan u baahan inaan iska dimino iyo macnaha meeqa qofo macnaha haddii aad fiirisid oo kale impressionka oo kale kan oo kale impressionkiisa 2000 impression oo haystaa kan oo kale 700 impression oo haystaa kan 40 haystaa kan 200 haystaa impression iyo reach iyo waxaan u fiirinaynaa result. So marka resultka ujeedaa 14 like oo macnaha 700 kan oo macnaha reach uu yahay iyo waxaadna fiirinaysaa 83 gan oo macnaha 2000 impression ka haysato ama reachka. So markaas haddana waxaa fiirinaysaa cost per result kan macnaha waxa waaye inaa macnaha like hesho meeqa average ku cost gareynaysaa. Also waxaan fiirinaa oo kale aniga CTR ka fiiriyaa kadib haddii CTR click through rate kan oo link click through rate waaye ma aha CTR ka oo macnaha ay ku qoran tahay CTR all haddii aan soo geliyo ma xasuusto laakiin CTR all iyo CTR waxay kaliyiin link click through rate. So kan click through rate haddii 1% oo ka badan yahay ani macnaha waqti badan ma sii geliyo because I know in profitable ay tahay haysintan oo meeshii aan ugu talagalay ay macnaha marayso. waxaa kuu soo hartay oo macnaha badanaa aad ka fiiri kartaa meeshan ay ku qoran tahay breakdown oo kan agtiisa ku yaallo. So marka haddii breakdownka ay imaatid waxaad u sii kala saari kartaa by time oo timeka macnaha iyo dayga iyo weekii iyo labada week lasoo dhaafay iyo bishii maadaama hadda 24 saac ka yar ay socotay macnaha there's no point ina macnaha dayga ku dhufan iyo weeka laakiin waxaan sameynaynaa by delivery aan tegaynaa. marka by delivery tagno
waxaan ku dhufanaa markaas age oo ku dhufan kartaa oo macnaha dadkii da'dooda, ama age and gender ku dhufan kartaa oo macnaha dumar iyo waxay u kala baxaanba, ama waxaa ku dhufan kartaa labadooda oo hal mar isla fiirinaysa. markaan labadooda hal mar isla fiiriyaa oo age iyo gender ah, kadib waxaan fiirinaa marka dadka oo macnaha ugu raqiisasan, dadka oo macnaha markay arkaan xayisiintan like hore ka saarayo yay yihiin macnaha dadkaasu, ma dumarkay u badan yihiin, ma raggay u badan yihiin, agekooda waa kuwe ayaan rabaa marka inaan isla wada fiirino. marka hadda meeshan waxaan ujeednaa in macnaha aan page likeskan oo macnaha kan ugu badan oo kale hadda ishada ku dhufatid oo hal mar aad fiirisid page like-ka. So waxaa ugu badan hadda kan oo macnaha 18kana ugu badan, kadibna 18, 17, 16 iyo 11. wixii meeshaas ka dambeeya marka waa ageka kale loo gudbaa haddana oo macnaha male-ka ah. So hadda kan aad fiiri sidoo kale kan kore waa female-kii oo macnaha iskugu jiro female iyo male, ama xayisiinta ka hooseysay 4 maadaama ay yihiin. marka xayisiinta koobaad aan fiirino. hadda marka haddaa fiirisid 25 to 34, Facebook marka wuxuu sameeyaa haddii xataa xayisiintaada ka dhigatay oo kale kaba soo qaad 20 jir ka bilowda oo kale, Facebook weligiis ma ku tusaayo, ma ku dhahay 20 jir iyo ma ku dhahay 18 to 24 ku dhahay, because 20 jirkii waxa ka bilowday meeshaan ku xasuustaa macnaha. So marka haddii aad fiirisid age-ka oo kale oo macnaha isha aad ku qaadid, waxaad raadinaya lebis qaybta ugu raqiisasan oo macnaha hadda female-kan aad ujeediin oo kale 13ka iyo 17ka inta udhexaysa oo female ah, macnaha waa meesha ugu raqiisasan oo 0.005 macnaha ku helaynaa per like. kan oo kale meesha ku yahay 0.01, kan oo kale waa 0.03 oo female-ka macnaha 65ka ka weyn. So marka ujeedaa haddii aad macnaha rabtid oo kale inaad hadhowti xayisiintan dib u kariidgarayso, kadib meeshaan haddii aad ka aragtid oo kale age-kan ayaa wuxuu yahay golden. So kan oo kale opportunity ugu badan ku jirtaa. haddaa isleda oo kale oo macnaha aad rabtid oo kale hadda 11kan meeshaan 11 likes aan haysanaa, laakiin 11 likeska macnaha raqiisa. waa sii socon kartaa xayisiinta afrada fiiri kartaa, waa isbabar dhigi kartaa tii adiga isleda. marka afartan xayisiin tan ugu fiican waxaa waaye xayisiinta noocaasa aad ku dhaafaysaa, kuwa kalena waa iska diminaysaa. marka haddii aad rabtid oo kale inaad fiirisid hadda macnaha waxaan fiirinayna age iyo gender oo kale, waxaa fiiri kartaa oo aad macnaha aad go-aan fiican ka gaari kartaa oo kale platform iyo deviceska oo kale. haddii aan ku dhufano oo kale oo macnaha fiirisid platformka iyo deviceska, so platformka macnaha qofka macnaha oo like saaray oo macnaha meesha uu ku jiro markaas, haddii ay tahay Instagram iyo haddii ay tahay Facebook iyo hadduu watay iPhone iyo haddii uu watay desktop iyo haddii uu watay macnaha Android, haddii watay tabletka. marka adiga hadhowti inta baxdid dib ma u sameynaysid waxaas, laakiin waxaa fiican inaad macnaha isha ku xadi kartid oo fiiri kartid dadkaaga oo macnaha kugu xiran ama pagekaaga like saarayo meesha u badan yihiin iyo dadka ugu raqiisan meesha ay ku jiraan iyo macnaha waxa ay platformka isticmaalayaan. marka aniga waxaan jeclahay oo my favorite ah waa markaan by delivery taabto kale waxaan dhahaa placement. So placement, cashirka placementka macnaha xayisiinta step by step-ka koobaad haddii fiiri sidoo kale placementka waa ka hadalnay. placementku macnaha waxa waaye qofka macnaha meesha uu markaas uu ku jiro. So haddii aad fiirisid oo kale Facebook newsfeedka oo kale markaa fiirisid iyo macnaha Instagram ama markaas ku fiirisid newsfeedka oo mobile app-ka ah iyo newsfeedka oo website-ka ah, markaas ku fiirisid oo kale ujeedaa the difference qofka telefoonka wata iyo qofka oo macnaha telefoonka wata laakiin macnaha telefoonka internetka ka isticmaalayo iyo qofka appka caadiga ka isticmaalayo. so marka ani hadda haddii aan runta kuu sheego wax hadda xayisiintan oo difference weyn oo macnaha dhigi karo maanta go-aan weyn waxaan ku gaari karaa, because waqtigaas taas waa aan dhigi kara ma jiro. sababto ah 24 saac ay socota iyada dhanba 24 saac maadaama ay socoto, marka waxaa un ujeedaa bis tan oo afartooda markaan saan hadda ish iskugu fiiriyo kale, tan macnaha waxay heshay waxaan arkaa bis inan page like-geeda labo, laakiin reachka iyo impressionka ka fiiriya. marka maadaama hadda Facebook oo weli una waqti fiican gelin inuu lacagta u kala qaybiyo oo reachka u kala qaybiyo,
iskaga jeedaa in macnaha ay hadda tan ay soo kici doonto laakiin 24 saac markay socoto kadib lagu arki doono inay xogo ayaduna ay kor usoo kacdo ay macnaha ama kale ay qaali sii noqoto oo hadda mujeedado Facebook xataa go-aan sax marka gaari kariyo ma guri karo intaas waaye laakiinse is okay maahan qaali waxaan ku helaynaa haddii aad fiirisid 100 total likes kaan helnay waa 280 waxaa naga baxday so far haddii aad campaignkaga overall kulligiis aad kor ka fiirisid click through ratekaas aad kor ka fiiriso waa 3.07 which is very good. I like it, so I'm not gonna madaminay because waxa waaye lacagtiga baxayso iyo waxaan helayo in return waa isku qalmaan. So far waxaa naga baxday $2 iyo wax yar under $3 naga baxday under £3 lacag u dhigmato adiga $4 camal ku dhawaa ama $3 iyo bar meelaas ayaa naga baxday so far. So marka casharkan waxaan filaa inaad fahamtay how to read waxaan oo macnaha kaaga muuqdo interfaceka Facebook iyo macnaha si loo kala saaro markii aan samaynayno kale kaba soo qaad leads oo kale insha Allah taala markii aan samaynayno qof inuu telephone numberkiisa noo soo diro ama ha u baahnaado guri kire ama guriga loo dhiso ama waxa rabta ahaatee qofkaas oo kale macnaha markaas waxaan fiirinaynaa oo kale total page view macnaha Facebook ka tageen oo landing page ka tageen iyo inta qof oo leads noo soo dirtay waxaad inta isku qaybisid kadib waxaa fahmaysaa landing page-kaaga inta macnaha yahay conversion-kiisu intuu convert garanayo ma 2% ama 3% ma 30% iyo markaas haddana adoo fiirinayo click through rate-kii cost per CPM-ka hadaa fiiri sidoo kale cost per 1000 impression oo ujeedaa waa under $1 waa just basically 32 cent waa very good haddii ay lacagtan kor u kacdo ay noqoto kaba soo qaad $1 kor u kacdo kan CTR-kana hoos u soo kacaa so marka adig CTR-kaada haddaa kor u kiciso kanna hoos u soo kacdo u baahan tahay because kan more hoos u soo socdo oo hoos haddii uu macnaha hadda tago 30 waa laga yaabaa inaan sii wadno campaignkan oo aragno oon isla aragno inuu macnaha 0.32 hadda meeshu ka yahay 0.29 oo ka noqdo 0.28 kadib hoos u soo socdo ilaa uu ka gaaro 0.15 something like that kanna oo macnaha meeshan oo hadda ka yahay 3.7 oo kor sii socdo ilaa 5 oo gaaro 5% click through rate markaas waa marka macnaha gold ama dahaba ku kor jiiftaa markaas oo macnaha halka sento ka baxo wax fiican u dhigmaa so marka I hope ina macnaha wax badan ka fahamtay sida macnaha quickly loo akhriyo ama loo analyze gareeyo resultka oo kaaga soo baxa campaign-kaaga marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh